السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي kala oo xiiso leh saaxiibayaal waa mar kale iyo barnaamijkeena ciyaaraha waa inuu kula faguri doono 24 saacadood ugu dambeeyay ciyaarihii dhacay. Kooxda Liverpool ayaa la kulantay guul darro aad u xanuun badan oo ay kala kulantay kooxda Man City. Liverpool oo ciyaarihii ugu dambeeyay iska dalaadhacaysay ayaa guul ay kala soo noqotay Real Madrid iyo Aston Villa ay istiri waxaad ku soo noqotay wadadii guusha. Laakiin ciyaartan ayaa ahayd ciyaartii ay ugu liidatay ee ay ciyaarto intii seasonka socday iyadoo ciyaartoyda kooxda aan midna mid dhaamin 11 ka ciyaaraya kaliya gooladaha ayaa loogu qaatay marka sidaa u eegtay noqonaysay Manchester City kooxda Manchester City oo ciyaartan ahayd ciyaar ay soo bandhigtay qaab ciyaareed hore loogu bartay oo hore loogu aqaanay sanadadii hore ayaa la soo baxday iyadoo oo ay ciyaartan 3-0 uga awood sheegatay kooxda Liverpool caqabad weyn ayaa ka haysata garoonka Itixaad iyadoo 16 ciyaarood ugu dambeeyay laba ciyaarood kaliya ku badisay halka 9 ciyaarood lagu badiyay 5 ay ku barbaraysay taageerayaasha Liverpool ayaa aad u dhaleeceeyay laacibka kooxda difaac uga ciyaara Ibrahim Konate kaasoo ay dusha uga saareen guul darridii kooxdu oo ka soo gaadhay Man City kuna sheegay in kooxda laga eriyo laacibkan Pep Guardiola iyo kooxdiisu ayaa la soo noqotay qaab ciyaareed hore loogu yaqaanay wararka kale ciyaaraha Rayo Vallecano oo ah kooxda Spanish ka dhisan waa koox aniida kooxdan barbar la gashay kooxda liiga haysa ee Real Madrid kooxdan Rayo Vallecano waa koox hore barbar la soo gashay Barcelona Real Madrid sidoo kale waxaa soo dhawaaday kooxda Barcelona oo 5 dhibcood laga hayay ayaa imika 3 dhibcood laga hayaa 4 iyo 2 ka gaadhay kooxda Celta Vigo Lewandowski ayaa guushan ku hogaamiyay kooxda Barcelona Liva oo line upka kooxda ku soo noqday ama shaxda kooxda ayaa dhaliyay hat-trick Barcelona daba caqabada wali ka haysata Hansi Flick ayaa ah in difaaci hore u soo baxay ay tahay wali caqabada ugu weyn ee kooxda haysata iyadoo ay Celta Vigo xalay chance ay ka faa'iideysatay ay gool ka dhigtay oo ay toos ugu tagtay gooladihii laakiin haafkii dambe ayaa waxa aad moodaysay inuu isbedel ku sameeyay oo dib u celiyay ciyaartoydiisa dhanka kale Liga Serie A ee Talyaaniga Inter Milan ayaa haysta imika liiga iyadoo xalay tolay ka badisay Lazio ciyaar aad u qurux badan oo ay labada kooxood ciyaareen Inter ayaa awood ugu sheegatay Lazio inkastoo ay Lazio bariyahan iska dalaadhacaysay haddana Inter Milan waxay ka faa'iideysatay guul darridii Napoli iyo barbarihii ay gashay kooxda AC Milan wararkeena ciyaaraha intaas ku soo koobayna saaxiibayaal wassalaamu calaykum waraxmatullaahi